بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan salaamayaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed magacayga waa Maxamuud Faysal Axmed sidaan hore u sheegnay halkaan ku balansanayn mowduuc habeenkii dhawaan ka hadlay waxaan rabaa inaan maantana mowduuciisa inaan ka hadlo magaalada Jigjiga ama dawlad deegaanka dhibaatooyinka jira haddii aan la isla taabanin oo runta aan laga sheegin oo la gees maro waa dhibaato soo noqonaysa runtuna waa wax aad iyo aad u fiican in la isu sheego laakiin xilliga iyada ee runta la sheegayo dad badan baa laga yaabaa inay dhibsadaan waxaan doonayaa inaan qodobadii habeenka dhaweed aan ka hadlay inaan say u jiraan dadku ay si fahmaan inaan uga hadlo markii isbeddelku yimid oo Mustafa yimid talaabooyinkii uu qaaday dad gaar ah ama qabiil gaar ah ama gobol gaar ah lagu ataagay waxa kamid ah dhulkii la boobayay iyada oo magac loo sameeyay oo dadkii dhulka laga qaadayay lahaa waa dadkii xukuumadii hore ka soo jeeda dadka malaakiin masaakiinta ee dhulka hore la siiyay ay dawladii hore siisay dad iibsaday oo masaakiin oo hantidoodii lacagtoodii kala baxay dad guryahoodii dhistay nidaamkii loogala wareegay dadku waa yar garamarsan yihiin xaqad halka ay ka jirto waxa ku yara eedeeyaan dad kale oo Jigjiga degan ama niman kale oo qabiilo kale ka soo jeeda oo madaxweynaha dawlad deegaanka ee arintaas dhiseen gareeyay way ka yara leexiyaan taas anigoo doonaya inaan ka raaco oo ifiyo waa dhaw magaalada Jigjiga shir baa ka dhacay shirkaas wuxuu ahaa shir jidwaaq shirka waxa soo abaabulay xasadaadii dadkii wax tabanayay ee ogaadeenka khaasatan qabiilka ogaadeenka ee dhulka laga qaaday iyo la shiray wuxuu u cadeeyay qorshe jidwaaq ay keentay inuu hayna Mustafa qorshe uu keenay in ahayd walibana uu kala hadlay xasdaad uu yiri warda arintan dhulkan dadka laga qaadanayo dhulka nidaam dawladeed aan kula wareegno ayayna nidaam qabiil ayayna u marin intaynu ka dayno dhulka baaris ku sameeyno si nidaam dawladeed dhulkii dadkii wixii si khaldan u haysta aan kaga qaadno Mustafa ma igu yeedbuuri jidwaaq igu yeedbu waa loo yeeray wuxuu dhulkiini la wareega ogaadeen kala wareega dadka kale weyn iska day ogaadeen ka qaaday arintaas arin fool xun bay ahayd arin reer gaar iyo dad gaar lagu targeetsanayay bay ahayd waxa jirtay markii madaxweynihii ka horeeyay isaga in ilay uu sii dhacayay dhalinyarada dawlad deegaanka magac baa loo bixiyay heega loo sameeyay heego gobol kasta oo kilalka shanaad ka mid ah waa laga sameeyay magacii nooca ahaa dad gaar lagu bartilmaameedsaday sumad baa dad gaar looga dhigay gobol gaar si gaar loogu targeetsanayay magaciisi guud deegaanka wada hay'ad dhalinyarada xukuumaddiisa ka horeysay ay dhistay gobol gaar lagu targeetsaday oo dhalinyaradoodii kani waa heego kani waa maxay kan lagu calaamsaday waa waxyaalaha khaldan marka waxaan jeclaan lahaa dadku inay fahmaan xaqiiqada xasadaadii wuxuu yiri cadeeyay dhulka khaldan iyo waxaan heegada laga sheekaynayo in ay isaga iyo kabineedkiisu maalinka dhow shirka ay la galeen inuu yiri anagu waxaas adeero shaqo kuma lihin ninka madaxweynaha ka wiilkiina kala xajooda dhulkan isaga nagu yiri booba kana qaata dadka taas baan doonaya inaan ku cadeeyo talabaad dad baa isaga la taliya gobolka reer dhagax buur ka soo jeeda ama reer isaaqa markay tabasho la yimaadaan ay yiraahdaan waxa ay waxaan tabanaynaa Mustafa siyaasadda ma aanan fahmin Mustafa siyaasadda ma qurux badna wuxuu ku yiraahdaa waxyaalaha hadda aan la yaabo waxa kamid uu ku yiraahdo siyaasadda sidaan u taageersanayn reerkii isaga ah halka aan dhigay iyo sidaan u galay Soomaa aragtaan annaga maanta in looga faano oo la yiraahdo reer Cabdillaan ka adkaanay in la yiraahdo reer Cabdillaan uu meel saaray siyaasadii baan reer Cabdillaan ka tirtiray annaga adeer wax qabadna nooma ah reer isaaqna kuma wada faraxsanin mana wada jecelin mana doonayna reer Cabdillaan waa tolkayo annaga iyo iyaga annaga iska jecel annaga tolkayo yihiin dhibaatada annaga inagu wada dhacaysay aragtidaada iyo cidda kula qabtay ee meelaha cuqdada kala timin adiga iyo inta kula qabtay gaar u tahay reer Cabdillaan waa niman nala dhashay oo tolkaya qabiilka maxaad carabka ugu dhufan bay qaar badan oranayaan ay sheekada wasiire waxaan u wasiireynaynin iyaga madaxweynaha iyo iyaga la taliyay wasiireeyeen oo iyagu may maldahanay si kala u dhigaan iyagu maxay sida qayaxan ugu dhigayaan sida qayaxan u dhigaan baanana sida qayaxan ugu hadlaya in lagu faana maanta in reer la targeetsado in reer siyaasadan kala dagaalamay in la yiraahdo waxaan doonayaa 30 sano inayna saaxada siyaasadeed ayna ku soo noqonin Mustafa
حقيقة هذا دون إنسان وطن كا لاج وسوي علينا وقاعدين صاحبه كسارية يسقى وقاعدين ككلا أي كوايان حق حقوق أي لهاين في عبد الله أو عقديسين كل أي كوايان وقاعدين أردن أوتوماتيكالي وكسارية صاحبه ونرهبين وأرجنا يسقى هو سيريا شكذا مركو يسقى سيريا نقول وسيريننا مو سيريننا مركو يسقى سيرين واحد رنتنا وأنو شيءنا وأنا نقهر مننا ولي منا ساعات بنا قهر مننا من مثل قبل كشر أنا قام مثل قبل كشر وديدن سياسة ديسة أنا قام مثل دلنيرة قبل كشر أنا ساعات على قبل لا نقول يا أفيان قبل كشر أنا نقول يا حقيها دلنيرة قبل كشر يسوق من نقول من مثلي أنا قام مثل كهالنا عدك قبل دلنيرة كشر وحن تاجر سنة هاي وحن هاي وح أيهين دلنيرة هي قبلها يفيق يقرع أي شو قام حيين برنا وحن هاي دلنيرة نصب يا مقع ولاقنا حيين برنا كوا هدو فرحت قليون بأننا فرحت قلني لكن كوا مركو عدادس كسارو أننا عدادس كاسون سارين كوا أنا فرحين وما أنا فرحت قلينه لأن يرضى أنا وحنا باقيا وطن كان النجع إسكال مستقبل كيني إنه نكاسينا كعياره عقدة إنه نرحدقه تيب ألا فصلت سنين ناس وتقال ميسي إنه إلي مركو شلي تتكليني هدو شلي ما جي أبو تدقاره أما قبيل قاره أما قبل قاره وكتر جيت سنين ما أنت إن هيجو لقو تار تلمان صدق أما لقو تار جيت صدق قبل قاره مدونينو ديار رومني وان ديدنهي وان عمباريننا رايقنا عاسا كوا هريرها تاغن ee labada ka abuureynaya Mustafa diidan waan diidanahay waan ka soo horjeednaa dhinaca kale waxay in fara badan ku doodaan ay yiraahdaan waxba inooma ogol reer Cabdilli taan reer Isaaqnahay wayna xaqiraan jiritaankeena diidan yihiin waxayna waa option gaar ah kaas waxa option ka galay gaarka iyaga cid aragtida la timaad cid iyaga kamid aan ka sugaynaa dadka noocaas oo kale ay nasaan u cambaareenayna anaga teamkan inay u cambaareeyaan markaasaan la helayaa kalsooni iyo qalbi wanaagsan oo saafiya mawduucanna waan wadayaa ilaa iyo inta xaqada aan ka helayo waliba waxaan u sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dhaxbuur baan shir ku qabanaynaa toddobaadkan soo socda shirkaas oo quseeya khaasatan dhalinyarada aan magac dhabay ee ka soo jeeda gobolada Jarar iyo Qorraxe iyo Nagob shirkaasaan qabanqaabinaynaa dhaxbuur baan ku qabanaynaa waxaan u sheegaynaa in aanu ninkan iyo siyaasaddiisa iyo qabyaaladda iyo qabiilka iyo cuqdada uu kala dhaxdhigay inaanu si cad u diidanahay cidda iyaduna in meel kale ka soo jeeda cid gaar ah oo cuqdadaysan ama qabiilo qaal ah oo cuqdadaysan waan ma taageerino iyadana waan ka hor imanaynaa mawduuca halkaas kaga baxo laba qodob oo kale aan doonayo inaan ku darsado oo ka baxsan dadka uu dhibay doono kaliibkaygan ee dhibsanaya ee labada ka abuureynaya dhibsan doono Mustafa waxa aad ku taageersantiin miiska keena naga gada hunguri haddaydan ku raacsaneen iyo qabiil haddaydan ku raacaynin siyaasad wanaagsan oo Mustafa oo dadka uu keena qaar baa waxay dhihi doonaan nabadda horta xorriyadda aniga xor ah oo jeelka ka soo baxay oo Mustafa yimid aniga iyo Mustafa nabadba halkan iyadana wada keentay Kismaayo ama muxuu ahaa Nairobi nabadda Mustafa ka keentay baa horta anna jeelka ka keentay nabadda waan jeclahay walibana nabadda dadka ay wax u tartay baanahay dadka nabadda garab taagan baanahay dadka nabadda taageersan baanahay ma ihi dadka nabadda ka soo horjeeda nabadda waa wax fiican waa wax wanaagsan waa wax maanta ilaahay lagu xamdiyo aad iyo aad u wanaagsan nabadda aan wada ilaashano nabadda Mustafa system ay ku ilaashano moona inoo sameeynin nabadda inaga aydan loo tahay Mustafa danu ma aha كلابات مصطفى ضد ما الله إنه مدين مصطفى يا هرت خطركوا مصطفى عيد سود دويسة أو صعبة تنتا أو كل حدا موين عيد خطركوا أول مارك تدخل إسكمال الله يد إلا وضركت عيد سياسة على كهرت مع دم موين أنا وحنا مسنة مصطفى إنه يهي إنا إلي يا مصطفى إنا إسكميني هم بنا مسنة إنا إلي الشارع مركي مصطفى وقتن كعري مصطفى وطن كوحوق عري أنا أعطتك إنا إلي وأنا أعطتك كالين وقالين adigu halayn iyo ma ana dadka kaaleyno boorto ugu carray wadaniyad iyo dad jacayl moona ugu carran ina ilaa walaalkii ana dili ma Mustafa ana walaalka dil buu carray Mustafa walaalkiina ina ilaa sidii buu ku dilay Faisal Allahu naxariistay sidii buu ku dhintay horta dad jacayl iyo wanaag iyo wuxuu sameeyay iyo oo nidaam moona sameeynin khatar cid ku aad u arkana ina ilaa saa kale in xumaan doona Mustafa horta waan wadaya barnaamijkaygan dadka dhibsanaya waan jeclahay inay dhibsadaan waxaan uga hadlayaa in la dhibsado حقيقة جتنا كهالله أنت يرى لبسنا يسا وأنا دوني توش كنا نكون فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته